waxau sheegay ibnu jawzi caleyh raxmatullah alimaam ibnu jawzi ayaa qiso cajab badan sheegay oo meeshaa ku timid saalix ibni axmed ibni cabdillahi ibni muslim cijli buu ka warinaya wuxuu le aabbahay baa ii sheegay awogii cabdullahi ibnu isaguna ka warinaya waxaa jirtay buu le haweeney qurux badan baa maka joogi jirta haweeney aada u qurux badan nin bay lahayd marka maalin maalmaha ka mida ayay marka muraayadda isku fiirisay ninkeedii oo la jooga markaasaa waxay ku tidhi atara axadan yaraa hada alwajha laa yaftatinu bihi ninkeeday ku leedahay ma kula tahay wejigan nin arkay oon fitnoobaynin inuu jiro oon ku fitnoobaynin yani quruxda ilaahay siiyey markaasuu wuxuu ku yidhi haa waxaan garanayaa buu yidhi nin haddaad wejigan tusto aan marna ku fitnoobaynin ii sheeg bay tiri waa kee cubayd ibnu cumayr in la yidhaahdo wey bat waa nin sheekh oo caabid ah markaasaa waxay tidhi fa'dan lii fiihi ii idan bay tidhi anaa fitnayni ii fasax ma isku dayaayo adiga ninkeedii waay ma ii fasaxaysa wuxuu ku yidhi kac soo fitnay haddaad kari karto yani qisadu waa cajiib nin xaaskiisii kule rag soo fitnee waa wax lala yaabo waay laakiin waxaan dhicin ma jiro bas way tagtay wadaadkii bay u tagtay waxay isaga dhigtay sidii haweeney su-aal diiniya weydiinaysoo kale bay isaga dhigtay markaasay xaramka meel ka mida masjid alxaraamka dhinac ka mid ay la istaagtay wejigii bay marka marada ka qaaday mise wejigeedu wuxuu u egyahay qeyb dayaxa ka mid ay leeyihin aada u qurux badan markaasaa markay wejigii u fayday dabcan waxay rabtaa markaaba inuu fitnoobo soo maa wuxuu ku yidhi yaa amat allah addoontii ilaahayey istatiri buu ku yidhi is-astur wejiga qari meeshay ka filaysay inuu kusoo boodo ama sheeko la bilaabo yaa wuxuu ku yidhi naa wejiga qari ilaahay ka yaab markaasaa waxay ku tidhi qad futintu bika fandur fii amri warniyo waan kugu fitnoobay oo waa laykaa raaciye bal arrintayda dib u foori bay ku tiri bal ka baaraandag durbaha soo boodin islaam fitnaysano kugu fitnaysan baan ahaye bal arrinta dib u fiiri bay ku tiri markaasaa wuxuu ku yidhi waxaan su-aalaan ku weydiinayaaye runta haddaad iiga sheegto su-aashaan ku weydiiyaba arrintaada dib baan ka fiirin buuri codsigaaga waa tixgelin bal waan fiirin laakiin su-aashaan ku weydiiyaba runta iiga sheeg waayahay bay tiri wax kasta runtaan ka sheegi wuxuu ku yidhi haddii malakulmowd maanta kuu yimaado naftaada inuu qaadana uu rabo isagoo malakul naftiiba lagaa qaadiro malakulmowdna soo xaadiray ma jeclaan lahayd dantaada inaan kuu fuliyo jawaabtu maxay tihi waxay tihi maya waa runtaa buu yidhi su-aasha labaad ma jeclaan lahayd buu ku yidhi haddii qabriga lagu geliyo oo lagu soo fadhiisiiyo interviewgu iyo imtixaankiina kugu bilowdo ma jeclaan lahayd marxalada iyada ah waxaad iga rabto inaan kuu sameeyo ma jeclaan lahayd maya bay tiri waa runtaa buu yidhi wuxuu ku yidhi su-aasha saddexaad haddii dadka oo dhan diiwaankooda la wada siiyo adigana kaagii aan weli lagu siinin midig in lagaa siin doono iyo bidix in lagaa siin doonona aadan weli garanaynin meel lagu marin doono marxaladaa iyadaa ma jeclaan lahayd inaan dantaada kuu oofiyo xumaan kugu sameeyo maya bay tiri waa runtaa buu siraadka jahanamo korkeeda markii la marayo buu oodan ogeyn ma badbaadi doontaa mise jahannamaad ku dhici doontaa halkaa markaad marayso ma jeclaan lahayd in xumaanta aada samayso dantaada kuu dhammeeyo maya bay tiri waa runtaa buu yidhi markii aakhare inta la tago ilaahay la hortago la isxisaabinayo oo dadka acmaashoodii miisaanada la saarayo adigiina meesha aad taagan tahay camalkaaga miyaa ka xun miyaa xoogaysan doona mise midka wanaagsan aadan garanaynin marxaladaa iyadaa ma jeclaan lahayd inaan dantaada kuu fuliyo maya bay tiri wuxuu yidhi waa runtaaye fattaqi illaha yaa amat allah faqad ancama allahu calayka wa axsana ilayka buu ku yidhi addoonta ilaahayey ilaahay ka baq ilaahayga quruxdan ku siiyey ixsaanka kuu sameeyey allahaa ka baq buu ku yidhi intaa markuu ku yidhi way laabatay ninkeedii bay u tagtay ayadoo soo hungowday
oo waxay rabtay soo weyday bay soo noqotay markaasaa wuxuu ku yidhi maa sanacti ina maxaad samaysay bal waran maanta wixii aad u kacday ma soo heshay markaasaa waxay ku tihi anta bataan wa naxnu bataanuun waad ciyaaraysaa bay tii annaguna waan ciyaaraynaa bay tii ya waad kafta ciyaaraysaa bay tii meesha waxaan ugu tagnay wax caadi uma ahayn adiga aniga ciyaar baan ku jirnaa bay tii gabadhii noocaa ahayd fa aqbalat cala asalaati waasawmi waalcibaada maalinkii baa ilaahay qalbigeeda rucbi ku riday salaadii iyo soonkii cibaadadii marka ay isu taagtay ayay ku tagtay ninkii isaga ahaa ee haweenta qabay ayaa marka wuxuu dhihi jiray maalii walixubayd ibni cumayr afsada calaya imra'atii kaanat lii fii kulli laylatin caruusan fasayarahaa raahibatan bud waa ninkii cubayd ahay aniga maxaana kala gaadhay buu dhihi jiray islaantaydii waa habeen kasta aroos ii ahayd oo isu kay diyaarin jirtay ayuu intuu bedelay buu suufiyad ka dhigay buu suufiyad raahibad uu salaad u taagan marna sooman ayuu ka dhigay marka yani waxa weeyaan ujeedadu waxa weye misaalada noocaas oo kale waxay u imaanayaan calashaani in yani lagugu baraarujiyo yayna ku qaadanin dhaldhalaalkan iyo waxyaalahan iyo yayna ku qaadaninoo sharaftaada yaysan dilin cifada iyo dhowrsoonaantu marka waa sharaf waa karaamo waa mida ilaahay uu ku ammaanay tabaaraka watacaala in lagu daydana uu tilmaamay maryam nabiyullaahi ciisa calayhi wacala nabiyina asalaatu wassalaam hooyadii soo ma wadaraba allahu matala liladiina aamanuu imra'ata fircawn ya id qaalat rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljannati ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين إلهي وحكو أماني وآذي آد أبشر في يضو قولها أدنا إلى الحبن كذا ترنك حفظ ذي أو أي إلى لسي أو أي أنشح إلى لسي تاسو إلهي آد أبو أماني إن لقد أيضا لقد أيضا إله تبارك وتعالى أوت المامي سيداس درادي دول العيال waxyaalahan ilaahay baa ina geliyey inaguna imtixaanay masaladan ogaada doonitaankan adduunyada waa layna geliyey shahwada waa layna geliyey ilaahay baa inagu abuuray hadduu ilaahay rabo tabaaraka watacaala shahwo la-aan buu ina dhigi lahaa damca oo dhan baaba laynaga saari lahaa bal adiga isweydii maxaa damacan laguu geliyey waxaa laguu geliyey calashaani in lagu imtixaano ya imtixaanka isagaa haddaad ku dhacdana natiiju leey ya shahaado lagu siin baa jirta imtixaanka haddaad ku bastood ku barmoostana asaguna wuxuu leeyahy natiiju leey waad la garanaysaa natiijada soo labada natiijaba waad garanaysaa saas daraaddeed ilaahay wuxuu inoo geliyey inuu ina imtixaano waxaa la doonayaa marka inaan imtixaankaa lagu dhicin sax ku dadaal in aad muxuu ahaayey aad ka fogaato waxyaalaha keeni karaa oo ay ka mid tahay maalan ruuxa mar walba ishiisu inay xumaanta u furnaato ishu waa sahanka zinadaa la yidhaahdaa ishu oo ay ka mid tahay maalan ragga iyo dumarka ajnabiga kale ah inay isla cidloobaan haddii nin iyo haweeney ajnabi kale ah keligood ay qol ku cidloobaan meel ku cidlaystaan nabigu wuxuu yidhi sal lla ly slm shaytaan baa saddexeeya ya lama baahan oo haddana shaytaan saddexeeya maxay kula dahay soo isku qalqaalin maayo sidaas daradeed shareecadu khalwada xarimtay laanna waxa weeye waa asbaabta keenta waa asbaabta keenta waxaa ka mid ah in muxuu ahaaye owayahan aadka u badan xidhiidhka macno la-aanta ah iyo sheekada macno la-aantae dheer ee wiilasha iyo gabdhaha dhex maraya sheekadan iska socota ee haddana muxuu ahaaye aan lahayn muxuu ahay dawaabida sharciga aan lahayn hadal dabacsan baashio iska socota sawirada laysu dirayo marmarka qaarkood walilasaf waxaan muxuu ahay ruux muslim oo iimaan le aada iyo aada ugu khadhaan oo marka qaarkood jidhkiio qaawan laysu diro in badan soomaalidu waxay yidhahdaan walba umilisay iyo walba nin weyn midiinasay waxu ogyihiin uma sheegaan laakiin qadaayaadkana maraya noo imaanaya ee dhacaya ee dhallinyarada dhex maraya social mediahu samaynayo muxuu ahaayey warbaahintani ay samaynayso fitnadan adduunyada hadda socota ay samaynayso xad mala
inta aan ka ognahay in badan oo ka midana waad ogsoon tihiin sidaas daraaddeed meelaha halista ah ruuxu inuusan isku gelin naf baa kugu jirta shahwa kugu jirta shaytaan baa kula xidhiidha naf xunoo shaytaanadaa kula xidhiidha waxaan kadaata marka waxa wey ha ag wareegin ya meesha beerta ninkii ag wareegaysta soo marka dambe daaqi maayo soomali garan guurso haddii aad aragto inaadan iscelin karin guurso ilaahay tabaaraka wa tacaala dariiqaasuu baneeyey soomaali garan ilaahayna uu ballan qaaday inuu muxuu ahaayey u kaalmeynayo ciddii guursata laakiin fuxshiga ha ku dhicin faaxishada ha ku dhicin xumaanta iska ilaali jidhkaaga dhowr asbaabtii aad ku ilaashan lahayd ku dadaal meelaha xunxun iyo waxyaalaha sababta u noqon kara kuu jiidi kara iska ilaali waxyaalo waaweyn baa ka dhalan karaya aakhirada iyo adduunkaagaba inaad seegto ayaa imaan karaya marka walaalayaal aan is ilaalino